war degdega dagaal culus ayaa ka qarxay xilligan aan kula hadlayo gudaha magaalada Baydhabo ee gobolka Bay iyadoo tiro madaafiic markii hore magaalada lagu soo tuuray ciidanka hogaamiyihii hore ee Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa dagaal culus ku soo qaaday halkaas waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay isku urursanayeen duleedka Baydhabo habeennimadii xalay ahayd muuqaal uu baahiyay afayeenka Lafta Gareen wuxuu ku soo bandhigay ku dhawaad 100 mooto oo nooca labada lug leh oo feekonto loo yaqaan kuwaas oo ay saaran yihiin ciidan ronda ciidanka dawladda iyo kuwa taageera aadamadoobe ee ku sugan magaalada Baydhabo ayaa sameeyay howlgallo sidoo kale dhufeysyo iyo godad ayay ka qoteen gudaha xaafadaha Baydhabo laakiin intiiba ma aysan celin caawana Baydhabo dagaal culus ayaa ka soconayo sidoo kale ciidan ka soo baxay doolow oo ku dhawaad 1000 askari ah ayaa howlgalkan ku biiray waana loo baqaa ninka la yiraahdo aadamadoobe waxaan isla eegaynaa Baydhabo xaaladda ay ku sugan tahay cid adkaan karta yaa qaadaya mas'uuliyadda waxa ka dhasha waxa soo dhan isla eegaynaa saaxiib soo dhaw ka aragti dhiyo muuqaalka like saar siina share gare waa mahadsan tahay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxa la soo wariyay in caawa mar kale duulaan culus ay ku soo qaadeen ciidanka hogaamiyihii hore ee Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa aad u doonaya in magaaladaas mar kale gacantiisa soo gasho isagoo oo haysta ciidan aad u badan oo beeshiisana u badan kuna sugan duleedka Baydhabo kuwaas oo toddobaadkii hore duulaan aan inaba caadi ahayn cagta ku mariyay fariisimo ciidamada dawladda ay ku lahaayeen halkaas howlgalka oo shalay uu dhiig cusub helay ayaa caawa dagaal culus soo qaaday ciidankii ku sugnaa Lafta Gareen ee duleedka Baydhabo ku sugnaa shalay waxay soo bandhigeen ciidan cusub oo soo gaaray taliskooda gobolka Bay oo ay ku soo dhaweeyeen ciidankan ayaa ka soo baxay doolow sidaan dhawaan xogteena ama halkaan aan ku baahinayna boqolaal ay gaarayaan waxaana furinta hore kula hadlay mas'uuliyiinta dhanka Lafta Gareen sida wasiirka amniga afayeenka iyo xildhibaano dhawaan ku beeray howlgalkan waa la isbahaystay waxaana muuqata in Lafta Gareen uu mar kale rabo in Baydhabo uu xoog kula wareego saacado kooban kadib warkaas marka aan idin la wadaagnay isla haddana dagaal culus ayaa lagu soo qaaday Baydhabo oo la soo sheegayo in ciidanka Lafta Gareen rasaastooda gudaha magaalada ay soo gaartay xaafad Tawfiiq suuqa xoolaha badbaado iyo aagag kale oo Baydhabo ah ayay ka dagaalamayaan sida aan xogta ku helayno si kastaba ha ahaato Lafta Gareen iyo saaxiibadii waxa ka go'an inay Baydhabo xoog kula wareegaan oo ay ka faramuroojiyaan ninka la yiraahdo aadamadoobe isaguna wuxuu garab ka raadinayaa dawladda dhexe ee Soomaaliya si gaar ah madaxweyne Xasan Maxamuud oo uu dhawaan ka dalbaday ciidan iyo gurmad waliba lagu yiri ku laaw Baydhabo kursiga waan ku siinay difaaco gabar igana ilmo dhal wax soconaya maalir kursiga waa ku siinay difaacaniyo hadda waxa leeyahay marka aadamadoobe xaalad culus ayuu ku jiraa oo khatarteeda leh wixii warar ee soo kordhay halkan kala soco geesta kale ciidamada kubaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo ka dhan argagixisada ka wada deegaanka ka tirsan Shabeellaha Hoose ee Koonfur Galbeed howlgalladan ayaa ciidanka danab waxa ay ka fulinayaan dhinaca markaasi deegaano iyo degmooyin rumaysan yahay in ay ku sugan yihiin argagixisada deegaanadaasi waxaa ka mid ah deegaanka la yiraahdo Ceel Bashiir Farsooley iyo Dudumay iyo deegaano kale oo hoos yimaada deegaanadaas ama ku dhow oo ka tirsan dhamaantood gobolka Shabeellaha Hoose sida aan xogta ku helayno ciidamada ayaa intii howlgalladu ay wadeen gacanta ku dhigay dad ay uga shakeen inay xiriir la leeyihiin argagixisada waxaana la sheegay in baaritaano ay ku hayaan xaqiijinta eedeymaha loo soo jeeday raggan howlgalladan ayaa qayb ka ah dhaqdhaqaaqyada ciidan ee dawladda federaalka ay ka wado qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyadoo ciidamada sida gaarka u tababaran ay door weyn markaasi ka qaadanayaan dagaalka ka dhanka ah kooxaha nabadiidka ah gobolka Shabeellaha Hoose wuxuu ka mid yahay goobaha sida joogtada ay ugu dhacaan howlgallada ciidamada dawladda iyo weerarada maleeshiyaadka nabadiidka iyadoo dawladda ay muddooyinkii ugu dambeeyay kordhisay howlgallada lagu doonayo in kooxda looga saaro deegaanada wali ay ku sugan yihiin ciidamada danab ayaa la filayaa inay sii wadaan howlgalladan ka socda Shabeellaha Hoose iyadoo dawladda federaalka ee Soomaaliya mudnaanta ay siinayso baa la yiri xoojinta amniga iyo ciribtirka kooxaha nabadiidka gaar ahaan deegaanada istiraatiijiga ah ee ku yaala koonfurta Soomaaliya dawladdu hogaamiyo madaxweyne Xasan Maxamuud ayaa qaaday dhowr guluf oo ka dhana kooxaha argagixiso oo ay ka fulisay gobolada Mudug Hiiraan Galgaduud Shabeellooyinka
iyo gobollo ay ka mid tahay xitaa Bay iyo Bakool. Howlgalladaasi kolkii hore way guuleysteen, laakiin dib waxaa deegaanadii ula wareegay nabadiidka. saraakiil iyo siyaasiyiin ayaana xag la daaciyay baa la yiri howlgallada la rabay in lagu cirib tiro kooxaha nabadiidka ah.